Wararka ka imaanaya magaalada Mandhera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa sheegaya in kooxaha hubeysan saaka ay ka afduubteen magaaladaas laba dhaqtar oo la tilmaamay inay u dhasheen dalka Cuba. Kooxda afduubatay dhakhaatiirtan ayaa la sheegay inay dileen ilaaladii dhakhaatiirtaas ka hor inta aysan afduuban. Labadan dhaqtar ayay sheegeen mas'uuliyiinta dowladda dalka Kenya, gaar ahaan mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya, inay qayb ka ahaayeen mashruuc dowladda Kenya dhakhaatiir ajnabi ah oo u dhalatay Cuba ay ku keentay gudaha dalkaas, kuwaas oo ka fulinayay hawlo caafimaad deegaano iyo degmooyin ka tirsan dalkaas. Wararka ayaa sheegaya in dhakhaatiirtan loo soo tallaabiyay dhanka Soomaaliya, balse lama oga ujeedka ka dambeysa afduubka dhakhaatiirtan. Ammaanka gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa soo wanaagsanaanayay bilihii la soo dhaafay, hase yeeshee waxaa horey ugu dhici jiray weeraro ay ka geystaan kooxda Al-Shabaab.